اوكي marka la yimo muuqaal cusub waxa way cashirkii saddexaad ee koorsadii ahayd barashada probability videoga aan ku soo qaadanaynay marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay qaabka aad isticmaali kartid inaad cod ku gudubtid anaga waxaan isticmaalnaa muuqaalkan ama koorsadan ku isticmaalaynay program lagu magacaabo Filmora marka muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay sida loo isticmaali karo marka voice over iyo audio mixerka iyo filter waxa dhammaan ku eegi doonaa marka hadii aad ku cusubtahay marka muuqaalkan ama kanaalkan fadlan subscribe dheh sugda in muuqaalkan asxaabtaada ugu faa'iideysid aan share u dhahayd waliba aan share u sii dhahaydba koorsadan oo dhameystiran marka muuqaalkan wuxuu yahay muuqaalkii hore aan qaybtii labaad ayaa dhaxay mareysay markii aan soo kacsaday kii markii waxaan tagaynaa markii voice codsiga kordoobi kara hadda soo jeedo meeshan waxa qoran voice over marka aan ku dhufto waxa uu noqonayaa tab record ayaa soo qoraya meesha markaan taabto cod waan kordoobi kara marka waan ku dhufanayaa cod ayaan duubaya codkan hadda aan maqlaysidna waan duubaya marka had ma fahmaysid aan maleena sababtoo microphone wax ku duubaya aniga marka kan okay iska dhahay marka codka soo ku duubaa marka taas marka uu noqdo codka inaan kor saaro videoga okay ayaan riixaya codka kor saarayahay si audio mixerkan wuxuu faa'iideeyay sidii muuqaalkii hore ayaa ku soo sharxay haddii aan ku celiyo kan ugu horeey waxa noqon doona muuqaal videoga soo gelisay codkiisa ina xirtid ama ina dheeraysid hadkan ibadaya saaran waa xirag kan ku soo xig wuxuu noqonayaa music hada music ayaan naga saaran kan ku soo xig wuxuu yahay codka aad duubtay inuu noqdo marka filter aan maanayna marka muuqaalkan aad soo jeedo waxa ku soo darnay wixii marka filter ina dhaana rabnaa filter marka presetkiisu ku siinaas oo gooni ah maradi dhaadidna ku kala soo degsan kartaa marka presetkiisa ku dhufanayna marka qaabkan aan diyaar marka dhigin karnaa saan marka filterka marka wuxuu ku anfacayaa videogaaga inaad ka dhigtid midaa inama caadi ahayn oo color ka dhigtid marka filter macnaheedu waxay tahay in la karareeyo muuqaaladaada aad kan camal hadii aan ka dhigo kana ka dhigtay apply all apply all macnaheedu waxa la wadaa muuqaalada wixii ku jira dhan oo adiga aad soo dhigtay presetga oo ahay oo presetga aad dooratay dhamaantood wuu qaadanaya marka ma doonayo aniga hadda kan bis waay okay daas ayaan iska riixayaa marka saas ay tahay aad muuqaalkan hadii aan daaro kan waa uu saaran yahay muuqaalkan ay hadda soo galay marka transition iyo waxa si loo soo galiyay muuqaalka hore ku soo daawatay muuqaalka kale waa kana marka muuqaalka kale filter wax dhammaan saarna waa bedel karna filter cusub saaranayna asigana filterka kana saarayna marka meeshan oo qorata geeskan boqolka saartay stretching waxaad ka dhimi kartaa awoodda filterka aad saartay ayaad ka dhimi kartaa marka hada 100 waaye 50 maadi macquul alaas waaye ma fiicna marka filter saartay muuqaalkaaga inuu ka bato 50 laakiin hadda aniga muuqaalka wuxuu yahay mid oo recording garaysan oo habaysan oo soo degsanay muuqaalka adiga aad soo referenced aad duubaysid waxay noqonaysaa filterkaaga inuu 50 uusan ka badanin ama 60 sababtoo ah muuqaal colorka buuxo ma la jeclo colorkaaga oo rasmiga iyo qarnaysa ma fiicno markan hadda sanayaan ku dhaafaynaa waarigi doona marka muuqaal caadi ah sida colorka lagu dar karay dhamaantooda aniga soo qaadan doona hal reaction ah marka okay aan dhahaynaa hadda colorkana saarnaysa ujeedo oo maana marka overlay maxaa lahaa iyo overlay marka waxay noqonaysaa asigana saa ujeedo hadda muuqaalka wuxuu soo kordharayaa colorkii filterka ku saarnay ay waxaan ugu soo kordharayaa marka waxaan badna lama isticmaalo barnaamijyo xafladii xasaa loo diyaariyaa hadii duntaada muuqaalka xayeysiin iyo waxa soo ku sameyn kartaa saa camal hadii aan doono meesha waxaa loo tagaa in qoraal wax loo soo qoro iyo saa camal marka aan hadda dooni mayno oo nana iska saarina kansala iska dhaa okay marka overlay iyo filter waxaan hadii soo aragtay kaliya marka waxa ku dhiman qoraal iyo sida uu qorleed qoraal subtitle si loo qoray muuqaal korean ugu tusay balse element maxaa lahaa aan gali doonaa element hadii aad ku dhifato waxaad arkaysaa inuu ku siinayo presetskan oo gooniyo ku ah uu loogu talagalay in icon iyo waxa uu asiga uu wato in lagu isticmaalo برنامج مركب ميد آد وفي عواه
shapes doonto ku darsan kartaa. Tusaale ahaan camal waxaas kugu soo daraaday marka video oo daarmad baan maalis duuleysa iyo markaas waxaa loo tagalay xayeysiinada iyo intro iyo waxaas in loo sameeyo. Muhiimadu waxay tahay marka aniga inaan ku fahamsiino kaliya ay tahay in koorsadaan hadda waxaan dhan si oo oradan ku miroonaysa wada jeedo, laakiin markasta waxaan soo saari doonaa muuqaalo casri ah. dooni meynayna waqtiga oo nagu dhumiyo title aan ku darsanayna. Marka title si loo soo daray aad u fududahay. Marka meeshaan ay ku qoran tahay title-ka speed waa kan iska dhaaf. Title meesha qoran tahay ku dhufanaysaa. Marka title marka ku dhufato prestige ku siinayo qaabkan casri ah ayaa loo talagalay. Marka tusaale kan camal diyan ku dhufsado taas ay dhuu noqonayaa oo double click gareysa fiiriya hadda meesha camal fiiri title-ka ku tagaya title-ka marka tago prestige aan doona ku dhufana. marka kan camal qorta ku dhuftay hadhoodii kan saas ay soo noqonayaa. kan marka double click marka dhaado saanay ku soo bixiso qoraalka doonto ayaad ku qori kartaa. marka tusaale ahaan hadda camal maano hadii aan qoro maano production way okay aan dhaho video soo baxa sabab uu soo bixilaasan yahay videoga dagaawan oo macnaha crop ayaan ku sameynay muuqaalka korean crop oo soo sameynay. marka title saas soo tusi kartaa midka doonto doorin kartaa double tab double click siine kabacdi meesha uu soo darsamay. marka saas ay muhiim leedahay. okay gade marka muuqaalka marka la soo ku eegyahay oo muuqaalka xiga ayaad ku eegin doontaa sida loo isticmaalo speed iyo waxa si dhamaantooda. muuqaalkan haddii uu ku cajibiyo fadlan like subscribe waad ku mahadsantahay daawashadaada.